Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Somali Tech News oo alaaba aad uga barateen inaad ka daawataan casharada tiknoolajiyadda iyo wararkii u dambeeyay ee caalamka ka dhaca. Maanta waxaan ku baranaynaa cashar ku saabsan tiknoolajiyadda qaybta kombiyuutarka. Mid ka mid ah daawadayaasheena ayaa wuxuu naga soo codsaday sida aan u duubno shaashadda kombiyuutarka codka aan isu dul saarno. casharada markii aan bixinayno waxaan isticmaalnaa shaashadda kombiyuutarka ayaan ka sharaxnaa. sidaa daraaddeed codkeena waad maqashaa annagoo sharaxanay meelahaan tagayno sida aan u tusaaleynayno. waxaan isticmaalnaa program la yidhaahdo free screen recorder. free screen recorder waxa uu inoo sahlayaa inaan casharada ka duubno shaashadda kombiyuutarka ama screenka kombiyuutarka. sidaa daraaddeed programkan linkigiisa waxaan idin dhigaynaa descriptionka hoose ee videogan. markii aad isticmaalayso marka hore waxaa soo furaysaa barnaamijka, double click ama laba jeer ayaad gujinaysaa full screen meesha ay ku qoran tahay. waxa weeye meesha aad ka ballaarinayso barnaamijka sidan uu soo kacayaa. halkan waxaa uga jeedaa microphone. halkan markaa ku dhufato halkaa waa inuu ku joogaa system sound iyo system sound and microphone hadduu ku yahay. halkan ayaad microphone-ka ayaa ku dhufanaysaa. haddeer wuuna noo saxan yahay. meeshan aa ujeedaan waa meesha aad recordka ka bilaabi lahayd. halkan waxa weeye meesha laga maaskareeyo. halkanna waa barnaamijka meesha laga xiro. halkan aad u jeedaan full screen ay ku qoran tahay waxaa laga yaabaa inay ku tahay custom. waa meesha quality-ga videoga laga badiyo lagana yareeyo. markii aad carabka soo furto waxaad tegaysaa meesha ku qoran tahay 1280 lagu rutay 720 pixel. halka ayaa ku dhufanaysaa. kadib quality-ga videogaasi aad buu high u noqonayaa ama u sareynayaa. sidaa daraaddeed haddeer haddii aan bilowbo recordingkiisa sidaa u jeedaan halkan ayaa ku dhufanayaa. tiro ayuu siinayaa ilaa 1. halkan waxaa uga jeedaan volume-kii codka meeshii muujinaysay. sidaa daraaddeed hadda codkaygu wuu socdaa waana duubayaa. tusaale ahaan waxaa oranayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Somali Tech News oo laaba aad uga barateen inaad ka daawataan wararkii u dambeeyay caalamka ka dhaca. qodobada warka Somali Tech News oo idin hayana waxa ugu waaweyn Soomaali dil iyo dhac loogu geystay dalkaasi Koonfur Afrika. qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan intaan warkeena ku guda jirno. hase ahaatee waa kaasaasa codku u duubaysaa. barnaamijka markaad saf garaynaysa halkan ayaa stop garaynaysaa. kadib meesha tigta saaran tahay ayaad waxaa leedahay okay wuu ii soo baxayaa wixii aan duubay. halkan waxaa uga jeedaan tusaale ahaan waxaa oranayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Somali Tech News oo laaba aad uga barateen inaad ka daawataan wararkii u dambeeyay caalamka ka dhaca. qodobada warka Somali Tech News oo idin hayana waxa ugu waaweyn Soomaali dil iyo dhac loogu geystay dalkaasi Koonfur Afrika. qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan intaan warkeena ku guda jirno. hase ahaatee videoga haddeer dambe ee codka ka baxayo waa kii aan free screen recorder-ka ku duubay. daawadayaal intaasi ayaan kusoo afmeerinaa casharkeenii aan ku eegaynin amaba aan ku baranaynay sida aad u duubi lahayd shaashadda kombiyuutarkaaga. software-ka aan isticmaalno ayaanu ku sharaxnay casharkan. fadlan haddii uu videogan ku cajab geliyey channelkeena Somali Tech News kusoo dhawow, subscribe noo saar, share noo sameey.